taliyayga khaaski waa gari oo xasan malaysta la dhahay ee dawladda waa u shaqeeya ama lambarka labaad waa sheekhaasho guddi fulin baa siiyey maadaama nin maxamed suweeraan u ahay lambar 3 akishan siiyey xisbiga hooyo turso mustafa boorsada maran uu watay lacag buu raadinayay anna tan maran oo wato lacag ma raadin anu waxaan kaga dacadsanahay dadka waxaan dhahaa warwanu soo tirsanay orada ma turso eeg ninba wuxuu oran tusaalahan dadku inay hooyo tursayiin hal wasiirna waa amaani xisbigiina waa caay wasiirkiina waa xisbiga marka wasiirkaasi uu tariyay ka waran marka xisbiga hooyo turso been asaga isugu iman mayna annagu hadaan xisbiga hooyo tursanahay waa rushag waa deeqsi waa macnaha waa dadka ka miskiinka iyo ka kalaba waan xurmaynaa marka waxaan leeyahay xisbiga hooyo turso cid lagaga tagay kilalka garan maayo maadaama xukuumadda xarootay madaxweynaha haduu doono kolay ka furanaya kursigiisa maadaama gaadhidu shidaal badan ay go'un haysto anu hadaan madaxweyne noqdo bulshada waxaan ballan qaadi inaan dhaxlugeeyo ama bajaajta una fuulada shakhsi uma beriba bajaajta uma ku soo damaysama marka waxaan leeyahay Dr. Abi daliil buu leeyahay daliishu leeyahay intuu midib ku diro bidix aadana maray asagu meel u socdaan garan waaye ka dhawaayeen waan yar aamusan ogta marka waxaan leeyahay isku soo wada duubo shacab hooyo turso kaasheerku waa hooyo turso agaasinka xisaabaadku waa hooyo turso ka ugu sareeya kilalka waa hooyo turso qof kasta dhaqaalu rabaa xisbigu kamid yahay laakiin intaan magacaabo waayo waa qofkan ismaanay saaxiib aqliga aran ma magacaabe reer walba waan ka qayb galiyay in kastoo aanu la tashanin wadaadada tuugta wadaad waa lagu wareeri una labada madaxweyne isku xigay waliba kuwii hore xitaa kiimaka ile hore kama baran madaxweyne cabdi iyo madaxweyne mustafa ayaa nin walba familigooda isku wareejiya waayo warbaahinta waxa haystay shalay reer cabdille maantana waxa haysta reer isaaq liu booliska reer cabdille haystay maantana reer isaaq waa haysta beelaha aanu ku darin waxaan leeyahay isa soo saxa dhaqaalaha xaqiisa mayda xisbiga aga bal iska gelin dakalan galay xafiisku waa jeebka midigta iyo ka bidixda waa dhaqaalo inaan helno weeyo annaguna waa inaan si qabin xisbiga heestiisa waa degaysatay baan u malayn waxa ku jirtay kan u tirino oo aan siid kari arsha qaaday warintii waa fanaaniinta ya lacaga hadama lacag baa hadasho ma waji baan ku bixiyo lacagtu macna ma leh fanaanka ka saxay xisbiga waxaan laga saaraa beenaale xisbiga hooyo tirsade xisbiga hooyo tirso ruux hadduu beenaale yahay ama uu dadka isku diro labadaaba waan ka saaray iyo bakayl saddexdaa xubnoodba waan ka saaraa hadduu jaajuus yahay ama dadka isku diro xisbiganaga ma ahaan hayo hadduu beenaale yahay been aana waxba cidna ayna ku qasbaynin dee haddaan dhaho eega cidna iguma qasbaysto mustafa waan jecelahay waan nacebahay labadaba haddaan dhaho anaa hor u ah bakaylkuna dee waaba cadow innaga ma aha xisbiga waxaa kusoo biiri kara shaksi kasta oo in yar faraqa ku wata وهذا فريسينكا إيه أرتيجا كل كان قرآن كلا جينا فريسين لقما بحيو قف وين فريسينكا ساقطون مركز في فيديو جيجا وريجا والله ركتي حفيزنا والله قريان واصر واتكن حفيزك والله قرين حلو قرين ما كل كتره واتكن وانك جيل وذا وكله لا أول جل ما حدن لما هو بالحدي الدولة هل معلم بالحدي لا بس دولة ديارنا ستة توم بلاد بالحدي وقلت كنا لها يا دولة ديارنا دهنا قلت سمية إنك كرسي سعد وقلت تطوع وكحول ده إيه كمان عاو مصطفى كرسي وكوكي كيلو أروتي بالحدي حاسة ما أنت واحد اللي غيركم ولا قبل إياه إيه كمان دهاية هذا لما حيوك بنا لقوها يستا من حريص لقوها يستا gobolka ugu badan waa reer dhagax buurbe ha dadka ila shaqeyn kara reer magaalkii waa jarar wallahi reer qoraxay 2 3 qof bay ku leeyihiin laakiin reer godayga badan reer afneerka badan
cadaaladda waxaa siiyey eeg anigu halkan cadaalad ka hay guddida fulinta la taliyayga khaaskii waa geri oo xasan malaysta la dhahaa eega dawladda waa u shaqeeya lambarka labaad waa sheekaasho guddi fulin baa siiyey maadaama nin maxamed suweer aanu ahay lambar 3 akishaan siiyey lambar 4 gaadsan baa siiyey sheekaashna waa siiyey reerihii macnaha kale oo dhan baa siiyey eega xukuma anu waxaan qadiyay jid waa khabiirun baa jid waa qanaada ayaa dhinaca kale xisbiga laba gudoomiye ku xigeen buu leeyahay mid waa isaaq midna waa makaahil oo xilli soo doonto maana aragaanin baa iskale makaahil hadday soo doontaan shaqado ma raaxan ka udhe ma jartan dhulbaanta saddexdoodii boos meel baan iska dhigay gurigayga daaqadiisa yaalan warqadii ayagoo ku saxeexa 3 wasiir baan u hayaa nimanka ma raaxanka la dhaho waa inaga la hayso halka maan qoraal ka eegay sug mobilka dacwadda iga soo dacweeyeen